بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت هبون لما أنتين وحان كلان كان كعسدونا إسره يمعراجك نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام oo ah mucjizooyinka u waaweyn ee adduunyada intii uu shoogay laga arkay. waxaan jecelahay inaan toos uuna abaaro qaybta aan ugu talagalay barnaamijkan israha ku xusna Sheekh Dayib Ziyaad ayaana aan jecelahay in uu bal su'aalaha ka jawaabo. su'aasha aan weydiinay ugu horreysay waxay tahay nabigeena alayhi afdalu salaatu wasalaam marka laga warramay israha iyo mi'raajka كل قصاهان ضدكم وضاخرسون ويقانا، لكن دعوين باجري واوين أو مهمة أو إنه كعبر قادنا أو كوشري إسرائيل معراجكي. إن شيخ دايب ما هاد كحسوسن تهي دعوين كي واوينا هذين كان نبينا للدلمي عليه الصلاة والسلام أرنكا كوشري. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتأدبن كل السلام إياه ومدى النبي عليه الصلاة والسلام ملك السجود أدبن السلام إياه. إسراء والمعراج وأرن حدث وين بي أهيد دعذا وين بي أهيد دعذا تاريخها بي أهيد وحيالا بدن ويدعين وحيالها بدن دعينا دي علماء كتبه كقرين wayna farad badnaayeen asbaabtii keentay iyo wuxuu la kulmay nabiga calayhi salaam iyo xikmadooyinkii ku jiray. waxaa ka mid ahayd waxyaalaha waaweyn nabiga calayhi salaatullaahi wasalaam markii la qaaday ee maka laga qaaday ee baytul maqdis la geeyey oo cirka tegay ee ilaahay la kulmay ee wuxuu soo arkay oo soo arkay nabiga calayhi salaatullaahi wasalaam waa kii soo noqday dibna wuxuu ugu soo noqday baytul maqdis halkii laga duuliyay inuu dib ugu soo noqday. halka nabiga calayhi salaam waxa ku sii sugayay istiqbaalkiisa iyo soo dhaweyntiisii ambiyada ilaahay oo dhan, dadkii ilaahay oo doortay oo nabiga lagu yiri minhum man qasasna calayk wa minhum man lam naqsus calayka oo dhan baa halka ku sugayay. halkii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaad ku tujiyay. waana qiyaasi kartaa mandarka iyo dadka inta isugu yimid iyo sharafta halka ka muuqata. imaamkii ambiyada imaamul mursaliina de meelaha ku sii xaqiiqowday ba kamid ah rusushii oo dhan inuu maalinkaas nabiga calayhi salaatu wa salaam imaam u noqday. waana garan kartaa xaaji markii de meel saas oo kale la isugu yimaado dadku gooni waa la soo arkaa, si guudna waa la soo wala arkaa. ambiyadii la wala arag kulan la wala qaaday nabi maxamed calayhi salaatu wa salaam la kulan la soo dhawee la is arag. marka waxa dhacay kulamo gooni ah. waxaa isu arkay 6 nabi way 6duba aad u sharaf badan yihiin baa shir gooni ah iyo kulan gooni ah bay qaateen. mid waa abul anbiya oo ibraahim calayhi salaatu wa salaam nabi ibraahim sallallahu alayhi wa sallam iyo nabi muuse kalimur rahmaan iyo nabi daawud iyo nabi sulaymaan oo wiilkiisii ah iyo nabi ciise calayhi salaatu wa salaam iyo nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. 6 nabi ayaa shir gooni ah bay qaateen, meel gooni ah isugu yimaadeen. ambiyada ilaahayna markay isugu yimaadeen meelahaas oo kale waxa laga hadlayay waa nicmada ilaahay. 6 nabi markay meesha isugu yimaadeen oo de 6duba de 6 nabi ay yihiin ayaa la qof kastaay iyo nabi kastaay bal ilaahay ha ku amaano wuxuu ilaahay ku galaday wuxuu ilaahay ku nicmaday. waana arinta ay tahay dadka muslimiinta marka meel la isugu yimaado inuu horta bal ilaahay la xuso oo ilaahay de laga hadlo
nicmadiisa laga hadlo nabiga lagu saliyo sallallahu alayhi wasallam nabiguna wuxuu noo sheegay laba qof saddex qof meel isugu yimaadeen ay nabiga ku sali waayeen ay halka ka kacaan iyagoo dameer baktiyay ka qurmoon ay meesha ka kacaan marka meesha la isugu yimaado waa in ilaahay lagu xuso nabiguna lagu xuso alayhi salatu wasallam marka hadalkii waxa hor qaatay nabi ibraahim alayhi salaam waxaan dhan ubadkiisa bay wala ahaayeen marka nabi ibraahim wuxuu yiri isagoo ilaahay amaanaya اللهم اتخذني خليلا إلهي وكي صاحب أنا إقدكتي وانا قلت إلهي ده إلهي وينا أو خليل كادكتي أو خليل كادكتي ده صاحب كادكتي أو كالقعيل كادكتي ولما خلصوا علماء حشقان ودرجة كسر صاحبتي نمتك يعني وبلاس كليا وقف قلت إنه قاعد كريم marka nabi ibraahim alayhi salaam ilaaha waxaan ku mahadin mahadiisa iyo nicmadiisa ay kamitahay inuu saaxiibiga dhigtay ittakhadani khalilan buu yiri wuxuu ku sii daray nabi ibraahim alayhi salaam wa a'tani mulkan 'aziman boqortooyo weyn ilaahay uu siiyay culimadu waxay isweydiin boqortooyada maxay ahayd la siiyay ila adduunyo asaga lama siinani nabi ibraahim alayhi salaam waxa la siiyay intii ka dambeysay nabi kasta oo soo baxay wuxuu ka soo baxay tafsiirtiisa ubadkiisa ka soo baxay marka boqortooyo diineedna ilaahay wuu isiiyay buu yiri nabi ibraahim alayhi salaam waja'alani ummatan qanitan waxa kale ilaahay igu galadeeyay inuu imaam iga dhigay imaam diineed oo waliba toosan oo suuban oo quman oo hanuunsan ayuu ilaahay iga dhigay buu yiri wastafani bi risalati waxa kale ilaahay igu galadeeyay risalaadkiisa iyo kutubtiisa iyo suxuftiisina inuu ilaahay igu soo dajiyay wa anqadani min an-nar waja'alaha bardan wa salama nicmooyinka ilaahay ka mid ah oo nabi ibraahim ku galadaystay waad ogeeyeen diwaan la wala garanayay in naar lagu tuuray naartii dhanaydna ilaahay horta iga badbaadiyay lagama badbaadinin oo kaliya waliba naartiina waxa looga dhigay bardan wa salama waa bardi qabuub looga dhigay oo culimadu waxay hadii qabuub lagu dili lahaa qabuub bay u diri lahayd waxa loo raaciyay wa salama qabuub nabad gashan ibraahim alayhi salaam intaasuu ku soo koobay marka fadhigaas galadii ilaahay jalla wa ala ugu galadeeyay waxa hada ka daba qaatay nabi Muuse alayhi salatu wasallam nabi Muuse isna ilaahay ka hadlay wuxuuna sheegay waxyaaluhu ilaahay ugu galadeeyay wuxuu yiri alhamdulillah alladhi kallamani takliman ilaaha waxa ma hadle aniga ila hadlay hadal toosa anbiyadii hore waxaan wala ognahay jibriil baa soo diri jiray jibriil baa loo keeni jiray risaalada asaga u dhaxayay ilaahay iyo anbiyada waa sidaa jirtay laakiin asaga nabi Muuse alayhi salaam jibriil ma dhahaynina ilaahay toos buu la hadli jiray toos buu u maqli jiray marka ilaahay wuxuu yiri alhamdulillah alladhi kallamani takliman musayidi wastafani una idortayo waxaan ku jiray dadku ilaahay doortay rususha aha wa anzala alayya at-tawrat tawratna ilaahay baa igu soo dajiyay buu yiri waja'ala halaka fir'auna ala yadi ونجاة بني إسرائيل على يدي نعمينك إلهي وحير وحكم لها فرعون كي وينادي وبني آدم ككلية يرى أنا ربكم الأعلى كهلا جيسي أنو إلهي يقولها جميري ريب بني إسرائيل كلا أدون سنجري محل قومي سنجرينا بدبادة أنو إلهي يقول بدبادي انتاسنا وحير نبي موسى عليه الصلاة الله والسلام كركا عليه السلام هذا هستيب كمو دارين نبي إبراهيم isagana ninkii waqtigiisii joogay namruud loodan jiray isaguna allanimo sheegtay qudhiisu oo waa kayiri ana wixii uumito marka laakiin soo kumu darin hadalkiisii habeenka mahadnaqi ilaahay u jeedinayay waxa hadalada kale ee guud bay soo hoos galayaan marka hadalada ku hadlayaan anbay hadalo murti aha oo jawaami'ul kalimiya aha waxa laga yaabaa kelimada kasta inay soo hoos galayaan maxaan ku yiraahdaa intaas oo tan iyo waa laga yaabaa wax kale inay soo hoos galaan laakiin kale carabka muuna si gooni ah ugu dhifan muuna ugu dhufanin laakiin ninkaasina way jirtaa inuu nabigaas ibraahim alayhi salaam da ilaahay ku halay namruudkaas ee fir'aun waxa loo sheegay fir'aankuna uu ka darnaa kaas fir'aanku de uu ka khatar sanaayo halku gaadhay bani aadam halka kibir muuna ka gaarin bay culimadu sheegaan sax فنبي موسى عليه الصلاة والسلام مركو هذا الكي لما يبا وحيسنا هذا الكي كذب قاتي نبي داود عليه السلام فالنبي داود وحيري الحمد لله الذي جعلني ملكا إلى هرت وحما هذا له يقال لي يقول أنا بقر الدنيا أحسبه الدنيا بقر تويد ولو دي ببعد انت لو قمت دين وحيري وأنزل علي الزبور
هذا زبورنا إلهي ويسود جيي وألان لي الحديد horta boqor baa laga dhigay aniga oo boqortooy adduunyo la ii dhiibay adduunyada culimadu waxay sheegaan waa seef laba afle adduunyada dil lagu sii xaraan ma ah laakiin hadii aad mariso halkii ilaahay mari ku yiri de aakhirada ku dhaweyn ilaahay ku dhaweyn halkii mari lagu yiri hadaan marinina de ilaahay ka fogeyn فالنبي داود عليه السلام بقرتي لو دبل لكن بقرتي وحده إلهي وكل رالي قليل باهي لكن نعمت باهي زبورنا واللي يقول سود جدا أفرت كتاب النقانة واوين مثل كم هويان زبورنا واللي يقول سود جيب وألانا لي الحديد نعمل كلاه كوجا على النبي داود وحكم هذا البره إنك داودين كاركوا أنت ما أنت بر لو بهذا إن لهجاجية ده ما وحكي لبلا قدقوا وإن للدلالية وإن دبل قلية وإن شقة كبحضة لكن النبي داود برهن إلهي سيدة حنجدة وكلا وقدقي سيدة كحنجدة إنكم مثلا دي أنسان دونه أي برها ساسي ولاقوا برتو أركلا سود دونه كسميني سوى دبنا قلينين وحوانا كسمينين برتهم بوقابا سيدوا أصدقوا الرابع أيو كدقي وألان لي الحديد وسخر لي الجبال بورهن إلهي با أسخرك وبورو محيس من جيرين وإلا تسبح سنجرين قلكو قرآن كآخريو لغسو تجيدا سقا ama uu tasbiixda bilaababa buuraha iyo shimbiruhu waxay sameyn jireen waxay ku celcelin jireen codkiisa ku celcelin jireen way la qaadi jireen way la tasbiixsan jireen ilaahay bay la xusu jireen taasina waxay ahayd nicmad ilaahay uu ku galladaystay nabi daawud calayhi salaam kadibna wuxuu yiri wa aataani alxikmata wa fasl alkhitab nicmooyinkiisa ka mid ahayd inuu ilaahay siiyey xikmad oo nin wuxuu ahaday aad xikmadiisu ay usaraysa buu ahaayo nin gabadha iyo fudayd iyo waxa muuna lahayn waxa kale ilaahay nabi daawud siiyay wa fasl alkhitab fasaahu laha balaagu laha hadalkiisu hadal aad u saafsaafsan oo u faahfaahsan oo kala dhigdhigan oo didan iyo wax isdabageliyo waxa aan lahayn buu ahaa marka taasina nicmada ilaahay uu ku nicmadaystay ayay kamid ahayd nabi daawud calayhi salaatu llaahi wasalaam waxaa isna hadalka markii qaatay nabi sulaymaan oo wiilkiisii ah isna boqor buu ahaa aabihiina boqor buu ahaa nabi sulaymaan wuxuu yiri calayhi salaam alxamdulilah alladii sakhara liya alriyaah ilaaha waxaa ma hadlay aniga buuraha dabaysha ii sakhiray buuraha aabihii bay ahayd laakiin wuxuu yiri ilaaha waxaa ma hadlay dabayshan buu ilaah gaadiid uga dhigay isaga laka baawur maanta iyo halkan baawur de loo baahan yahay maanta diyaarada loo baahan yahay gaadiidku maanta waxa inoo yahay dadkii deegaanka horeeyay ama baadiyihiina maanta bada awr iyo dameer iyo waxa u yihiin gaadiid ayaa nabi sulaymaan ilaahay gaadiid wuxuu dabayshaas uu raranayay dabayshaas uu dadka saarayay cidoo diray ciidanku diray wuxuu kala tartiibin wuxuu kala macnaynhayo dabayshaas gaadiid u ahayd markaas bil meel loo socdo iyo dabayshu ku gaarsiinaysa qofkii in yar bay ku gaarsiinaysa هذه من نعم الله عليه بري أنا واحد نعمين كلا يقولنا بس حكم لها إنه الضبيلها إلهي جديد يقدقي إيا والجن والإنس جن كان إلهي أسخرك عيدا كوها يكوى قريها ولسا يكوى مقالوين كولسا كوى معلن توسو صار الجن كان إلهي بقى يسخر بيري بني آدم كان إلهي بقى يسخر بيري وسخر لي الشياطين ومحاوس من جرين يعملون لي ما شئت الله وحو دونه ayay jinka u sameyn jireen wana qeysada jinkan awood buu ilaahay galiyay ilaahay markaa u sakhiray wax alla wuxuu dhisay yiraahdo magaalo noqotay ciidan aha markaas amar mu gelinaya way wala dhaqaaqayeen maxay u sameyn jireen min maxaarib imaarooyin intee la leeg bay marqura tukicin jireen magaalooyin intee la leeg bay marqura tukicin jireen iyo wa tamaathiil sawirro bariyada jireen way u sameyn jireen iyo wajifaanin kal jawaab uu yiri xeedhooyin waaweyn way u sameyn jireen wada kolku ciidanka intaa le jin iyo insiba waxay wax ku cunayaan xeedhooyinkoodana way u sameyn jireen iyo waquduur raasiyaat dhariyo waaweyn oo la qaadayn ninka dhariyaheena maanta adiga arkay debaasayar biris bala saar markaa la qaadaha laakiin dhariyahaas dhariyo waxay ahaayeen aan laba qaadaynin taana waxa ku tusaysa dhariyo intee la leekaayeen kuwan way ii sameeyeen buu yiri wa allamani mantiqa tayr waxaan ilaahay bareeyay shimbiraha juro maanta inakaan maqalno waxaan macnay wala leeyahay gabigood laakiin ilaahay macnay inaga naga qariyay laakiin nabi sulaymaan calayhi salaam shimbirtii dhawaaqdaba quraanta yar halka maraysa xayawaankan codkoodana
ilaahay wuu fahansiiyey isagu marka uu garan jiray taana wuxuu yidhi waa nicmada ilaahay baray bay ka mid tahay wa asaala lii cayna alqidr waxaa ka mid ahaa nicmooyinka ilaahay nabi sulaymaan siiyey dixadhan iyo webiyaal iyo togog dhan oo socda oo nuxaasa waa nuxaasta iska socota maanta dee biraha laga samaystay ee waxa weeyaan oo iska socoto oo webi intuu doono ka qaadan hayaa wuxuu doono kala soo baxaya adu webiyaal iyo dixo dhan iyo webiyaal iyo togog dhan oo socdo oo nuxaasa ayaa ka mid ahayd nicmooyinka ilaahay ku galladaystay nabi sulaymaan calayhi salaatu llaahi wasalaam kadibna wuxuu kusoo gebagabeeyey asagu wa acطaanii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi ilahay wuxuu sii wariyey boqortooyo aniga inta ka dambaysa qof ba aan u subanin walidaalika boqortooyo tii nabi sulaymaan oo kale ihi waxba kama dimin isaga dee ilaahay baan u ballan qaaday ilahayna uu ka aqbalay marka boqortooyo kasta oo timaadaay tu un waxay ahayd iska maxduud oo iska kooban laakiin tii nabi sulaymaan oo kale ilaahay cidna muuna siinin فالنبي سليمان عليه الصلاة الله والسلام انتاسو اسنا حضركي كقبحي وحا حضركي قاتي نبي عيسى صلى الله عليه وسلم فالنبي عيسى مركا وحيري الحمد لله الذي علمني التوراة إله وحام هذا توراة إبري والنبي عيسى سجد الدين مستقل مهني لكن تي النبي موسى أنبو سجد جديدي وحنا والله قدري وزيادة وجبتين كرامات laakiin kitaabka lagu soo dejiyo isagu reer bani Israa'iil ku xukumayay nabi Ciise waxay ahayd tawraad ahayd marka tii ilaahay ugu mahadiyo wuxuu alxamdulillahi alladhi allamani at-tawrah allah waxa ma hadla ibaray tawraad ibaray ba ma hadla iyo wal injiil injiil ibaray labada buu isku waday isagu waja'alani ubri'u al-akmaha wal abras waxa kamid ah galadaha ilaahay ku galadaystay dadka barasku ku dhaco wuu masixi jiray wuu ku tufi jiray halka buu ku dawoobi jiray dadka dhagahala ama afka bala in hadlaynina intuu u yimaado buu ilaahay u baryi jiray ilaahayna ducada uu ka aqbali jiray oo dhagalaantii way ka tagi jirtay aflaantiina way ka tagi jirtay qala wa uhyi al-mauta biidhnillah nicmooyinka ilaahay waxa kamid ah wiilana ugu galadaystay in aan dadka dhintayna aan soo nooleeyo qof hadduu dhinto oo lagu yeeri jiro hadduu qubuur tago uu la hadli jiray hebel soo baxo uu soo bixi jiray uu wareysan jiray marka taana waxay ka mid ahayd nicmooyinka ilaahay jalla wa ala uu ku galladaystay nabi ciise sallallahu alayhi wasallam kadibna wuxuu yiri warafa'ani ilaahay baa kor yeelay wa tahharani xumaan oo dhan ilaahay baa iga tahiray gaaladana ilaahay baa iga badbaadiyay وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم وبني آدم كلا حلول الشيطان قف كسر مركو صور دالن هيو وقنجيريا حتى النبي قال وحش الشيطان بان الله لكن كي يعني إلهي بقى إسلامي بير لكن النبي عيسى عليه السلام هو يدي بقى إلهي من الشيطان اسمه لو ما صليدين marka nicmooyinka iyaga ay goonida la ahaayeen bay ahayd ilaahay baa aniga iyo hooyadayba naga badbaaday buu yiri shaytaan rajim oo falam yakun lishaytaani alayna sabiil annaka shaytaanku aniga hooyaday muxuu yiri sabiil nagu maran yani jid uu noo soo maro ama dariiqo noo soo maray midna meena jirin marka ambiyada waxa dareemaysaa ilaahay weynayntiisa si ugu weynayd say ilaahay u xusayeen waana tii horaga aan ku sheegnay oo ah qofka muslimkii laba qof wada meel isugu timaado arin dooni ha yeeshaan wax dooni ha laga hadlo laakiin bal xuska ilaahayna masha lagu soo daro xuska aakharana in lagu soo daro salliga nabigana sallallahu alayhi wasallam iyadana in lagu soo daro sida haddaan la sameynina dadka meesha waxay ka kacayaan wixii aan sheegaynay kulli nabigana alayhi salaam baa u dambeeyay halkiisina wuu dheeraa fa bal hadda waaba murtidii ama gaboodii weeyi nabigeena alayhi salaam daqiiqadaha ku hadhay bal intaad ka gaadhi karto isna kalimaadkiisii wanaagsanaa wax nooga sheeg horta nabigaa soo xidhay alayhi salaatu wasalaam hadalkii ibraahim alayhi salaam baa hadlay nabi muuse hadlay nabi daawud baa hadlay nabi sulaymaan baa hadlay nabi ciise hadlay sallallahu alayhi wasallam hatta shirarka adduunyada wadiga arkayo inta badan qofka mas'uulka meesha joogay weyn baa hadalka ku dambeeya oo soo xidha فنبينا عليه الصلاة والسلام هذا الدير بمشي كجيري ولا مرتئها
وهذا مثل كستايبة أدمودين وبهني هاي حلقة دي برنامج إسكي فالنبي نحور عليه السلام إلهي بآد وأماني هرت آد بإلهي وأماني النبي عليه الصلاة والسلام قلكم أمانت إلهي كل إرادي بيري كلكم أثنى على ربي mid kasta oo idin kamid ah ambiyadaasay ilaahay wuu amaanay anna ilaahay baan amaanay waana amaani waxyaaluhu ilaahay igu galadaystay buu marka nabigu sheegay wuxuu yiri alxamdulillah alladhi arsalani rahmatan lil alamin ilaahay waxa ma hadle caalamiinta oo dhan kulkii sheegay jin iyo insi ma soo galayaan bad iyo bariba naxariis iga dhigay kaasa ma hadle buu yiri كافة للناس dadka oo dhan ay diray arab ajam madow cadaan kuwa hore kuwa dambe ay walba asaga un baa nabi u ah taana waa arin nabigeena oo gooni ku ah sallallahu alayhi wasallam bashiran bi ilaahay ugu soo diray ana u bisharanaya ki raaca ee tariiqiga soo mara janna ugu bisharanaya wa nadiran ki ididay caasiyana waxaan uga digayaa aakhirada ciqaab taasana uga digayaan nabiga alayhi salatu wasallam wa anzala alayya al-furqan waxaa mahadle allah igu soo dejiyay diintan dhan ee furqaanta waa maxay xaq iyo baatilka kala saaraysa wanaagga iyo xumaanta kala saaraysa foolxumada iyo quruxda kala saaraysa taas ilaahay igu soo dejiyay buu yiri fiihi tibyaanu kulli shay wax kasta xukunkiisana furqaantaas laga helaya waana arrin la yaab leh xaji kulmiyo quraanka waxa soo dejiyay 1400 sano ka hor waqtiga caadaad baa jiray dhaqan baa jiray maanta dhaqanka maanta mu jira waqtiga jiray يعني dhaqan ku isbad bedelaadeen hadana dhaqan dooni ha noqdo meel dooni adduunka ka jira shariicada islaamka waxa waqsan ma lagu xukun waa lagu helayaa undii waa arrin la yaab leh yani imka ma tahay dhaqanka Soomaalidu dhaqamadan kale ee ummadahan kale isku la nooc ma aha laakiin dhaqan arab iyo ku ajam iyo ku hore iyo ku damba meel kasta mu joogo xukun un baa looga soo saaraya shariicada islaamka waxay leeyihiin nabiga ku kala alayhi salaam marka wuxuu nabigu yiri fiihi tibyaanu kulli shay wax kasta xukunkiisa waxa laga helayaa bil tawraada in furqaanta nabiga lagu soo dejiyay sallallahu alayhi wasallam waja'ala ummati khayra ummatin ukhrijat lin-nas wuxuu waxa ma hadle ilaaha ummadayna ka dhigay ummadda soo saaratay ugu khayr badnayd waja'ala ummati wasata waxa ma hadle ilaaha ummadayda ka dhigay ummad dhaxdhaxaad ah waja'ala ummati humul awwaluna wa humul aakhirun ummadaydu wuxuu yiri iyada abuur ahaan u dambaysa laakiin aakhira jannada galitaankeedana iyaga ugu horeeya wa sharaha li sadri ilaah wa xamaad qalbigayga sharxay wa wadaa anni wizri dambigayga oo dhan dhaafay wa rafa'a li dhikri sheegayga iyo xuskaygana cirka geeyay wa ja'alani fatihan wa khatiman wa tahay kulli galada nabigeena alayhi afdalu salatu wassalaam ilaahi usi maaha mid aan xalqadii laba ku soo koobayno laakiin balan dambe inuu yeelan doona in halkaas ka sii wadno oo bal alayhi salaatu wassalaam hadalkii halka ambiyada dhexdeeda ka jeediyay inaan sii wadno laakiin waqtigu imakintaasi ayuu nagu simay allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم جاه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وحن مهد علنا يا شيخا إنه سوديارية حلقدني ونكسن waxaan mahad celinayaa dhammaan farsamo yaqaanada codadka iyo sawirradayna soo gaarsiinayay tan iyo barnaamijkan oo kale intaanu ku kulmayno aynu ku salino rasuulkeena maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh